walaal waxaan ku wadaa xigmadooyin aad uga heli doontid insha Allah. Cudurka asiiba cilmiga waa isla weynida. Cudurka ku dhaca cibaadaduna waa istustuska. Qudhaada ku qalafsanaaw, dadka kalena u dabacsanaaw. Nin saalixiintii hore ka mid ah ayaa la weydiiyey, maxaa masaajid u tagtaa intaan la aadaamin ka hor? Waxa uu ugu jawaabay, aadaanka waxaa lagu baraarujiyaa kuwa moog, waxaana aan rajaynayaa in aanan ka mid ahayn kuwaas. Dunida qofna aad ha ugu tiirsanaan, waayo xitaa hooskaaguba waa uu kaa haraa marka aad gasho mugdiga. Hooyo ayaa la weydiiyey, yaa u jeceshahay carruurtaada? Waxay tiri, kan xanuunsan ilaa uu ka caafimaadayo, kan maqan ilaa uu ka imaanayo, kan yar ilaa uu ka weynaanayo, dhammaantood ilaa aan dhimanayo. Ha iloobin naftaada markaad u wacdinayso dadka kale. Dariiqa toosan ha ku dareemin kelinimo, waayo waxaaba yar dadka ku socdaala. Ha sii eegin dib iyo wixii tegay, ma jiro qof orodka ku guulaystay isagoo xagga dambe eegaya. Waqtigu qofna ma beddelo, laakiin waqtigu wuxuu muujiyaa xaqiiqda qofka. Haddii aad jeceshahay inay dadku ku cafiyaan, adigu cafis iyo saamax bilaaw. Arrinta ugu wanaagsan ee ku difaaci karta marka aad maqan tahay waa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga.